wafdi ballaadan oo warkacaya gudoomiyaha ku meel gaarka ururka wadani mudane Cabdiraxmaan Ciro ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Oodweyne ee gobolka Daadmareed halkaas oo ay xariga ka tireen xafiis cusub oo ay ka furteen gudoomiyaha ku meel gaarka ururka mudane Cabdiraxmaan Ciro ayaa goofa gaara kala hadlay bulshada deegaankaasi wuxuuna faahfaahin ka bixiyay himilada iyo ujeedooyinka ururkooda isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri ururka wadani وأورد سوماليلاند ليه دول قول الله ملها وفقول ملها شخص قول ملها لكن مضحنا كم قار كم ذا أورد وطني يقول غير كسوتشين لكن وأورد بشر سوماليلاند كودا شفتوا كحولها نقطة كبيرة ليدا يوقف السوق كم ذا قيبان كلام بالشدة سوماليلاند وحكم ذي ururka wadani wuxuu taagan yahay laba arrimood oo muhiimsan hore waxa weeye Soomaaliland baahiyeeda iyo dibteeda haysataa bay u badan tahay waxaana ay kaga bixi kartaa arrimahaas oo dhan oo ay ka mid tahay biyalaan ay ka mid tahay caafimaadka xun ay ka mid tahay shidadka xun ay ka mid tahay adeegga bulshada xun waxaas oo dhan ay ka mid tahay nabadgelyada iyo xasiloonida waxay kaga bixi kartaa markasta isku duubnida ummadda marka waxaan u baahanay markasta midnimo qaran ururka wadani wuxuu taagan yahay inuu ka shaqeeyo midnimada ummadda ragga halkii joogaana waa rag aanu ku aaminsanahay in midnimada keeni karaan arrinta labaad waxa weeye muddo dheer baynu hadda 20 sano waynu halgamaynay halgankaasi wuxuu ahaa inaynu ka mid noqono bulshada caalamka oo ictiraaf helo ragga halka garabkayga taagan waxaan ku tuumayaa inay ictiraafka wax badan ka qaban karaan degdeg u keeni karaan shacbiga heerood weyne si gaar ah baan ugu mahadnaqayaa wax kastoo awoodayda ah waan jecelahay inaan u qabto gobolka kale oo iyaguna goobtaasi ka hadlay xildhibaan Cali Xaaji iyo xubno kale oo la socday waftigaasi kuwaas oo dhammaantood u mahadnaqay bulshada Oodweyne sida weyn ay ugu soo dhaweeyeen magaalada waftigan ururka wadani ayaa markii uu ka soo laabtay gobolka Oodweyne waxa uu ka timid dhinaca gobolka Sanaag Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.